maamulka iyo odayaasha degmada Xingalool ayaa ka hadlay biyo la'aan baahsan oo soo food saartay dadka iyo dunyada ku dhaqan degmada Xingalool iyo deegaanada hoos yimaada sida uu warkaasi inoo ku soo diray wariye Maxamed Cabdullaahi Aadan shirkani oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Xingalool ayaa waxa uu ahaa mid lagaga wada hadlayo arrimaha dhibaatada ah ee ka jira degmada Xingalool isla markaasina ay ugu weyntahay haraadka baan ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Xingalool shirkan ayaa intuu soconayay waxa qayladaan loogu diray dawladda Puntland iyo waliba hay'adaha samafalka waxayna ugu baaqeen inay gurmud degdeg ah la soo gaaraan iyo maamulka ay iska arkeen kana wada hadleen dhibaatooyinka ka jirta degmada Xingalool oo ay ugu adag tahay biyo xumadu xoolihii oo kaleeshaday aan wax raxmaadina u diin geel iyo ariba ay dhaleen waxaan halkaa ka sheegaynaa nin kasta oo danaynaya degmada Xingalool maamul iyo hay'adaha yani inay ka qayb qaataan ilaahay baa la baryaa oo wax bixin leh laakiin inay ka qayb qaataan baan caalamka u sheegaynaa abo 160 kilomitir baan ugu dhow 160 kilomitir baan ugu dhow barkadii oo waa go'aan ceelashii macallin biyaha laga cabbi jiray waa go'aan oo macaana sida la soo sheegay waa la isugu soo hayaamay dhulka geelashii ilaa hawd ilaa buuhoodle ilaa iyo ka yimi ayaa jooga xoolihii xilligii ay dhali jireen idii waa dhaleen geel waa dhaleen dhammaan waa dhaleen neef geedka gaarayana maxay ahayd ma jiro sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala baan tuugaynaa kadibna waxaan rabnaa inaanu marka gaarsiino maamulada iyo ciddii kasta oo wax ka qaban karta dhibaatada jirta in ay gacan ka geysato waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore baan tuuganaa oo ka sugaynaa biyaha marka labaadna waxaa insha Allah maamulada jira ee dhinacyada naga xiga khaasatan Puntland iyo hay'adaha hoos yimaadaba waxaan leenahay wixii dadkaas aad ka caawin kartaan oo xagga biyaha in laga caawimo looguna dhaqsado insha Allah wixii awood ah oo loo qaban karo si degdeg ah maamulku sidaa uu idin sheegay waxaa ka jira halkan abaara xoog baa jira abaaraha waxaan uga midnahay ummadda waxaa jira biyo la'aan oo tan ugu dari waxa weeye biyo la'aan booyadaha waa haynaa laakiin waxaa jira biyo la'aan ayaa jirta tan ugu dari waxa weeye biyo la'aan baa ka jirta degmadan Xingalool iyo ereyadeeda iyo tuulooyinkeeda baa ka jira tan ugu badni taa weeye tan ugu xujo hadeer loo waayay dadkii wax biyo loogu taana lagu sugan waxa weeye in aan warrano oo la kala warqaato oo wixii wara maamul iyo hay'adaha oo caalamka gudaha lagu gudbin xaaladda jirta oo biyo la'aan iyo waayay adduunyo waa nolosha bini'aadam deegaanka waa la isugu soo guuray marka baaqa kuwa dawladda ayaan u gudbinaynaa dawladda ayaa hay'adaha hoos yimaadaan oo maamusha sidoo kale uqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Xingalool isla markaasina ka qayb galaya shirka ayaa waxa ay si weyn carabka ugu dhufteen biyaha qaaliga noqday isla markaasina gaaraya ilaa 120,000 oo shilinka Soomaaliga ah Maxamed Cabdullaahi Aadan Darwiish Puntland TV magaalada